aniyaa kumanaan qofood kurbey kafeyday kaalamaan aniyaa kumanaan qofood kurbey kafeyday kaalamaan xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa aryaadhaha war ku xiisa badna maxirtii kalamaanoo xog qarsoon heshaya war afar xiisadoodan maanta qaatay isla xoog badana xukuumaddii xasan khayro siyaasiyiinta xanaaqsan xirxiray samiya ilaahow niinhirtoy habsana niingiliidoy xasradayn badana ma mucaarad xasuusta xilligii burburka abad ahaan ku nabcaay waa cabsadeen ma dhihi karnee jidka ii xir badnaa ma mas-uul ka xishooday weerarkii xagjirka amniga in la suga meesha kama marno isxariifis badnaa ma beyloo dad xogmooga la xisaabtamaya war xukuumad lan hisaabin iyaaba xukuumadan hayna xumaan sheeg badana ma siyaasi xafiiltan xil ku raadinaya war ceebsheegsheega ceeb duuduuga karoon isxorayn badana ma farmaajo ka xayuubshay xasaanadii ergaga aroo shib naga dhahag xulufooyin badnaa ma xisbigii xasan sheekoo mar labaad xil rabaa gacna geeljir hoosaa loo dhaqaay dad ku xoonsan badnaa ma wadaad xisbulxaakin xambar keensadaya isxilqaan badana ma guuroo xigmaddiisi xarun loo dhisaya war hayfafaala nabadeed hooba lehel inoo lisilgaama meelika jarta janan dareejo xiran iyo xooggu ciidan badana qarax soo xaluushiyo dad xasuuqna badana hub iyo hanti haddaan la siinin xaasidnimada asaa laga bilaabaye war qofka xaasidsana maxartii dad xasuuqo dalka xaalufisa xooladoon badana xildhibaanna miyaa mooshi soo xirfadaystay xeer cariirsi badna ma ajaanib xafiiskii bangiga loo xulay baa war walaa'un xiiqiiq badana may xildhibaan fiqiya xil u roor badana cabdiraxmaan cabdishakuur oo xariggii berigii ka xanaaqsan miya aryaadhaha waraanan ebedkay mas-uul soomaaliyeed ka maqlinaan beriga maqlay wasiirkii hore boostada iyo isgaarsiinta somalilan maxamed jaamac abgaal aaqandha qabatay kadibna wuxuu yidhi wasiirrada mushaarkoodu kuma filna hantida dadkay gacmogacmeystaan aniguna kuwii farataysa jirayaan ka mid ahay xanuun badanaana igu qabtay mugga dadka waxaan ka codsahaa in lay cafiyo koow horta xil dambena dib u qaba maayo dadkuna aad ha iigu duceeyaano kuwa xilalka haayana ha ka waantoobeen xoolaha ummadda intaysan ku bukanin war horta wasiirka allaha caafiye somalilan dadkoodu dad ducaysan weeye xoolahooda mas-uulkii cunaana waa ku xanuunsanaya habaarkooda waa la aqbalaya laakiin meeshaan dadka jooga habaarkooda iyo ducadooda midna lama aqbalo mas-uulkii xoolo dadweyne qaataana waaba ku sii cayilaaba aalaantay ku sii dibiraanba kuwaanu ku naacan warkii hoola dadkantii hadha'i kadibiri ya iritiis shahaadan teegana do'aadan iyo inay habaarkana seelika aqbale horta shahaadadan aad sheegtaan anigu gara waayo beriga haddana ma ducaad ku soo darta war xoolaha dadweynaha ninka cunaa hadduu adduunka ku baxsado aakhiruusa ku fakanayna sida ninkaas cafis ha la weyddiisto intay goorigoor tahay shiikh nuuraddiin rooble xuurshow allahow naxariistaa waxau dhihi jiray ka naqo kariinkaa tuug kaw intaysan ku iman ku tasho kaw haddaad tiira kuwa kuula kuudaad kori kadibna waa kala taageen adna maahaad kabruurutal kadibna waa kutub jinnaad ambase weeska karsame ar abdulow sheeg nuurudiin ilaahay naxariisa ma eray qandaf lama rabo hadda ka joog weeri wargolihii wakiilada ee somalilan waxay dhaheen doorasho cusub ma geli karnee wakhtiga nooloo kordhiyo meeqa beriyaa looga dhiga hadda waa loo kordhiyey war doorasho haddaysan somalilan ku geli karin maa cadaada yimaadaan ayadaa 5 daqiiqa lagu kala baxaa arooda kaaraan maanta kabtaydii ma aragti maradaydii aawi aa ka dhacda arooda waxaa layidhi burcad iyo boolisaa isku gale oo shacabaa dhinta oo burcadaa dhinta oo boolisaa dhintoo dhuq ay ku wada noqdeen beriga kaaraan wax lala yaabaa ka dhacay warsaaka ceelasha biyaha cabsi iyo naxdina dadu ku soo toos ewelba qaxaymaha ku tageena meeya kaa farxad ku soo toosi jira war nabaday ku toosi jireen dadku ina dhegaysaniyo 4 qofood oo meyda oon ciddi shay la aqoon oo masaajid agtiis taallaa saaka la arko goorba waa ku duka rabeen la soo duka waaye
warwar ma haysiina shabaaba shiina weeraray shiina hani jim tam tum dam yaw areen naftiyo wana ebedkaaba hunguriyaad ka sheekaysa shiina bajiye laguma cune wax kale amaad haysaa shabaab hadday shiinaba weerareen ma kuuriyada waqooyi u socdaan iyo wiilkii la dhihi jiray in aan warkaas jeegadiisa argaylan shabaab weerar doona in lana kaay warwarkayga dhex geline shabaab shiina ma tigi karee waa dhulkan soomaalida ee kenya maamusho shirka gaarisa meel agteeda ka shaqaynayso shiinayse ayay xarrintoodii weerareen hadda alaabtay ka jabiyeen dadkay dileensan lama oga aryaa kinyaati waa kii jajabiyeen shirkadii hormuuda iyakana ku hore halla jajabsho war ma haytaan madaweynagii kan lafta garan oo aaw shariifka bedelani odayaalkii ka dhaldi oboro mansuur yalla kulumi ma eraylankaas hurinimadiisa degdeg ah waa la kasiyaa xasarada badanna hal dijiyo kanagi waana had roobow haddii la soo daayo doorashadii dib loo qabtuu leeyahay lafta garan suu yeeli doona wadaa roobow haddii la soo daayo xasan daarima meeshu isaga jiraya isagu aanad iyoonay gaaskan iska dartaan shal dhoore xasan daahir afkiisu u xihan yahay maxaad roobow ugu kabaysaa aryaadaha xasan daahir mugow bilaabay inay layf soo galo taleefanadyaa laga aruurshayaa la yidhi awal ha u akhrisa waaya buugga xeerarka maxaabiista warnimayow hirshabeelle galmudug iyo jubbalandba dagaalo beeleela ka socda waxaana la yidhi shabaabka ayaa dadka isku diray oo hubka isugu dhiibaya mugga ma ka yeelayaan iyaku qandhada baallaahe warnimayow waddooyinkii lalahaa waa la dhisayaayo afgooye iyo jawhar kala aadayey mashruucaas maxaa ku dhacay ma dadkaa lagu maslaxaynayy dekadii hobyaadoo qadar laga sheegay inay 10 beri kadib dhismaheedu bilaabanayo aaway ma dadkaa lagu qancinayo warnimiya gohootigii 600 kilomitir lan dhisay langadii lahay oon warjoon daga damboy mis ee aami anaa naga tag waxa ma ogide qadar waxay keentay baabuura gaashaaman oo 700 gaaraayo waryaa baabuur ciidan waa naga bateen mana tagaan meeshii looga baahan yahay waryaa baabuurtan yaa nimankii loo geynine walba madaxtooyada lagu soo wareejiyey aryaadaha aawa macaawislayda walaxaan iska dhacayna ciridka la taagaayo waraa ciidanka Soomaaliya 30 ku weeyaalin amisoomna waa 30 kala leeyahay 60 kaas u dhaqaaq waa nimankan maxaad wiilasha macaawisada la ka rabtaa waryaa shabaab waa kun cunuga la yiri daashna waa 200 baa la yiri ma intaas loo taahaya shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan waryaa dada bariiso arka shubta fadooyda anaga isgaabi aryaa qararac lama rabeen naga taga aryaa baaqii la ha shabaabka laga soo meel barwaaqa roogsaday